madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeed Maxamed iyo Barre intii uu degmadaasi Laascaanood joogay oo gelikii hore soo galay isla markaasina uu doorkii u ka soo baxay khudbad qiimo iyo qayle ayuu dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Laascaanood isagu u jeediyay idinka oo u jeeda madaxweynaha oo baabuurkiisii la socda oo dadweynaha dhexdooda wadada hareeraheeda suban isaga oo gacanta ku haasinaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeed Maxamed iyo Barre oo si xiisan u soo dhaweeyay dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood iyo madaxda gobolkaasi oo khudbadiisaasi oo dadweynaha reer Laascaanood u soo jeediyay waxa uu ku soo qaatay in midnimada ay xoojiyaan isla markaasina ay xagga shacabka wax soo saarka iyo ay kordhiyaan kusoo beegmo gobolka Sool waan isogeen baahiyo oonka aad u qabteen si kastaba ha u socotee in gobolka Sool gobol laga dhigo way noqotay waxayna ku noqotay sida kuma jiro faditaanka dadweynaha ku nool gobolkan iyo kolleyba xasalku waa amarka ilaahay iyo madaxda qaranka dowladnimadu ama qarannimadu waxba bilaa kuma bixiso waxaan leeyahay dadka caaga intaas markaan ka gudbo gobolkii waa dhismay sharci ahaan waa dhismay laakiin degaan ahaan ma dhismay waxaa loo baahan yahay dhisaan